Okay, bismillahi raxmaan raxiim. Soo dhawaada saaxiibayaal. Kusoo dhawaada Hagarlaaw Academy. Maanta waxaan rabaa inaan video kooban ka sameeyo training week recap. Training week recap macnaheedu waxa weeye inaan dhammaan dul istaago maanta oo Sabti ah, week endina aan suuqna inoo xiran yahay. Traderskii aan qaatay weekii tegey. Weekii tegey wuxuu ahaa one of the best weeks waxa weeye so far. Wiga aniga 3 to 5 baan egaa 3 to 7 3 to 5 sometimes 10% way gaadhaa laakiin 3% waa targetkayga waxa weeye macquulka ah normalka ah. Wigan waxaa sameeyey around 3,794 point 21 centis. Waxaa laga jarayaa 3,000 horta si guud waa 3,993 waa 4,007 doolar. Commission koy $200 waa laga jaraya waa commissionka inuu broker ka qaadanayo. Marka total waxaa soo hari doona $3,774 ayaan suuqa ka daabacday weegii tegey. Dhammaan traderskii aan qaatayna waa kuwan. Ma badnayn traders aad u kooban bay ahaayeen 2-3 trader baan qaadanayay maalin kasta. No 3 traders baan qaadanayay every single day. Dhammaan waa dul istaagi doonaa. Waxaan rabaa in qof kasta uu note gareysto waxyaalahan ku hadlayno. Aad uga faa'iideysto informationkan aadka freega u ah. Kadibna isku dayo inuu dabaqo hadhow oo uu traderska yareeyo, losska yareeyo oo manage gareeyo, runnerska sii daayo and so on. Suuqan waxaa ku jirta fursad aad u weyn baa ku jirta. Sidoo kale khasaarihiisu aad buu u badan yahay. Waxay dhahaan forex waa meesha waxa weeye lagu samayn karo habka ugu adag weeye oo loogu samayn karo lacagta ugu fudud. Exactly. It's the hardest way to make the easiest money. Marka waa ujeedaan lacagtan waa easy 3k 4k in a week waa incredible adoo Soomaaliya jooga. Haddana wadada lagu soo gaaray way adag tahay inaa waqti badan u hurtid, lacag badan u hurtid, time badan siisid, sacrifice aad samaysid, struggle aad samaysid, habeeno badan soo jeedid, simulationno badan, khasaare badan aad kasoo kabatid, wax maqashid, shibilinka dhibkiisa inaad soo martid al rabaa si ay heerkan usoo gaadhid iyo heer kaleba. Marka traderskan qaatay dhammaantood horta iyagoo total waa kuwan sida u dhan yihiin bo intaa. Maalintii Isniinta waxaan qaatay 2 trade oo midna streamkan ku qaadanay midna goldi buu ahaa streamka hortiisa. Maalinta marka waxaan sameeyey later that day baan withdrawal sameeyey. Withdrawalkii marka Ferguson aad u gacan fududiyo waxa sameeyey isla markii waa ka goosteen. Marka ma rabo withdrawal history-gayga inaan soo sheego. Talaadadii aan ka bilaabay. Marka talaadadii bisha waa 9kii bisha, 10kii bisha, 11kii bisha iyo 12kii bisha waa 4 maalmood. waa talaada, arbaco, khamiis iyo jimce. 4 maalmood waxaan qaatay around 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 trade. Marka la eego laakiin waxaa laga yaabaa hal trade oo aan 2 jaanis siiyey ama 2 entry ka galay inuu jiro around 10 trade bay isugu soo noqonayaan. Trade-ka u horeeya waa kan. Waa Euro USD, waa buy, waa London. Trade-ka losing trade-ka ah waa London. bishii August 9 10kii 13 baa trade-ka xiray. Haddana Janis labaad baan siiyey. Janis labaad waa ka faa'iiday 706. Janis koowaad waxaan ku khasaaray $399. Isla maalinta Euro JPY baa haddana live streamka ku qaadanay. Marka maalintan koowaad Euro USD waxaan qaadanay 3 trade, 2 trade oo Euro ah, Euro USD loss ah, and then trade labaad win ah, and then trade saddexaad oo live streamka win ah. Marka hadda August 8deedii 9kii August aad soo daawatid live ayaan ku qaadanay trade-kan oo ummadda dhan aad daawanaysa YouTube-keena Zones Online. Okay, trade-ka marka Euro USD ee hore wuxuu ahaa around hadda analysis-ka dhan aan ka qaado sidana kale ahaa. Sidana kale noqonaya Euro US dollar 9kii bisha waa kan. Euro USD 10 time frame saasay ahayd. London session ardayda kumaanan jirin laakiin Discord-ka waxaa ka socday falanqeyn ah Euro USD in ay buuxin doonto range-gan ay ka tegi doonto this range ay jabsan doonto ilaa resistance-ka ay gaadhay. Kanalka kor buu ku xirmay, kana kor buu ku xirmay. Kanna waa London Open. Marka kanalka entry ka galaya waa kan. Lowgana stop ka dhigtay. Intuu in yar isfilib gareeyay markii uu soo noqday wuu naga saaray. Aandan waxaan sameeyay chance labaad baan siiyey. Marka trade-ka koowaad ee talaadadii sidan oo kale u noqonaya lambarkiisa haddaan soo eegno waa 1.02062 1.02062 long position 10 time frame entry u badan ku qaataa 1.02062 sidaas oo kale. Candle-ka marka wuxuu sameeyey inta aan horta entry-ga
u gudagelin resistance area baan halkaa ku arkayay targetka guudna waxaan u arkayay inuu halkaas oo kale yahay inuu halkaas u socdo suuqan markaan waxaan sameeyey 1 hour lowskii hore waan dhignay stop losska 7 bib meelahaas baan dhigay I mean aan dhigay suuqan markuu furay waxaan rabay in london volume uu suuqa riixo ilaa iyo uu siiyo let's say 15 bib 15 bibska uu siiyo imuusan siina wuxuu sameeyey uu soo noqday waa iga saaray and then waa iska sugay kaalalka marka 30 minutes-ka wuxuu sameeyey kor buu ku xirmay areadan korkeedu ku xirmay chance kilaad waxaan ka siiyey isla halkan isla areadan aan ka siiyey markuu jabsaday stolskan waxaan dhigay halkan 12 bib 11 bib targetkana waxaan dhigay halkan 12 bib 11 bib 13 bib waa interigan labaad marka 1.02070 baan ka galay 1.02178 baan ka galay oo kaga baxay 178 yeah kaalka markuu xirmay kana hayga jabiniyo left baan eegay rejection bay ahayd laakiin waxaan in laga dhex baxay markuu ka handalkan socdo xirmayna all of a sudden waxaan sameeyay stolska break even baan keenay oo ardada si guud baan uga wada soconay groupkeena and then trade waad saas u ahaa trade laadna saas u ahaa hal idea markaa khasaaray waa manage gareeyay lotku waa isku mid markaa faa'iideyni way badatay marka halkaa maalinta trade-ka koowaad baan ku qaatay labadii trade u horreysay saasay ahayd isla euro jpy baan live streamkeena interi ku qaadanay isla maalintaas 30 minute time frame bal euro jpy u fiirsay u qurux badnay 30 minute time frame-ka isla maalinta August 9-keedii waa kan halkan ay ahayd yaa markaynu labadii duurnimo live streamka nimi suuq sidana kale sameynay resistance baa halka ahaa halkan waa resistance hore oo rejectionka gaarayay this one support resistance kanalka territka uu xirmay territka markuu xirmayba waxaan sameynay ka kale uu hayga jabinayo August 9-keedii hadda live soo daawad sidan oo kale intii uu qaatay stop-loskuna wuxuu ahaa around 10 bib meelaha hadda intii u fiirsatid waxa weeye 138024 138024 ha halkaas kalaan ka galay exactly maxaa dhacay waa hayga candlekii hore waxaana ku xirnay aan ku manage gareeyay 138200 arrow meelahana ku xir oo markii ninka la cabdinaasir maalinta uu lahaa sug ustaad aynu trade-ka hayno waan sugay anigu oo waxaan hayay arrow lotkan aan ku galay wuxuu ahaa ujeeda waa 5 afar ka mida baan xiray afar ka mida meelahan aan ku xiri doonaa lod halkii aan hayay oo aan break even-ka keenay wuxuu sameeyey later that day 5tii iyo barkii galabnu iga saaray and then intaasaan maalintaa kaga baxay marka maalinta waxaan sameeyey around 700 iyo 400 aan khasaaray $1 profit haystay talaadii wey okay the next day euro USD u fiirso waa 10kii bisha London waa ka booday maalinta waxaan qaatay 3 iyo barkii euro USD buy waa newski yes waa CBID buy stop baa lay furay markii slip yar baa igu dhacay waa ka baxay and then buy-dii baan chance labaad siiyey loss bay igu noqotay so marka waa is-ceshanay and then later that day baa waxaan siiyey chance-kii saddexaad euro USD maalinta waxa dhacay CBI-da bishii hore waxay ahayd 1.3% bishan waxaa la filayay 0.2 waxay noqotay 0.0% marka bad numbers soo baxay that means USD aad bay daciif u tahay marka taas way bayda igu qafileen xataa waxaana u jeedid oo dhan dhammaan bayda ah waxay ku base garaysnaayeen in factida ay CBI inay baad soo bixi doonto maalin talaada arbacadiina baadkii bay noo noqotay marka newska 3 tareer baan ka qaatay laakiin kala dambeeyey eegiyada u fiirso maalinta newsku waa kan 30 minute time frame markaan tago 10kii bisha 1dii iyo barkii duurnimo no euro jpy way waa kan ya euro USD waxaan sameeyey buy stop waxaan dhigtay around this area maalinta live streamku ina ka go-ayay this one halkana buy stop dhigtay wuu ii furay koru iyo riixay markiiba waa aniga ka baxay oo xoogaa kalsoonida iga yeeluntay 1.02686 baan ka galay 1.02766 baan kaga baxay 686 1.026 horu i yara tuuraday 686 halkaasuu iiga furay oo buy stop bay ahayd wax stop loss-ka watay qaab baynu u manage garayna waxaana kaga baxay around halkaasoo kale kaga baxay saasoo kale ah imagine trade-ka hadda hayn lahaa hadda intaa laba xin iska baarahayo
tirarka hadday si u libdhay cirka u gaaray. wax kasta u baahan isaga isiin lahaa laakiin intaasun baan kaga baxay 8 bib iyo wax lamid ah. And then second chance baa waxaan siiyey based on 1 minute. 1 minute kuma trade garayno I know that, laakiin waxaa yara eegaya balinay aydidaas ii shaqayso. maalintaas CPI-da 9kii bisha 10kii bisha waa 1 minute-ka waxa dhacay dee 1 minute time frame. 1 minute-kan ma i dhaafay suuqi ma iga tegey, and then waxaa yidhi yo waa ina suuqa aad ka faa'iidaysatid maadaama aad u soconayo. 1 minute candle-kan waa 1 minute-kii newska 3:00 galabno. Live streamka markaa kuma jiro, waa maalinta live streamka errorku nooga imaanayay. 1 minute-kani wuxuu sameeyey bearish buu ku xidhmay. 1 minute-kani wuxuu sameeyey high-ga markuu jabinayaan galay. waa kan haddaa lambarka u fiirsatid kan looska ah 1.03 218 baan ka galay. 1.03 218 long position. 1.03 200 iyo around iyo 218 ha halkaasaan ka galay, meelahaas ka galay. Stop loss-kayga waxaan dhigay lowga 15 1 minute-ka, waayo 1 minute candle ba stop loss-kiisu wuxuu noqonayaa around 10 bib. waayo newska aad u xoog weynaa. all of a sudden kana soo baxay uu socday stopkii waa iga saaray. So weligaa iyo allah waxaa iska ilaalisaa in aad traderkaaga hobgaraysid inuu soo noqonayo ama sidii balaankaagu ahaa aad u traderka. ani balaankayga waxa hadduu halkaa jabsaday inaan ka baxo, waana stop loss-kaygii uu soo jabsaday waa ka baxay and then wax yar kadib uu soo noqday. kani markuu xidhmay dahayga haddana interi labaad ka siin lahaa ku shaqayn lahaa, laakiin maadaama aan break even joogo trader hore qaatay oo newskii hore aan ku fududaado sii daayay, kii dambena losiga noqday. I have sit back, dib baan u fadhiistay. streamkaynu soo galnay waxaan nidhi euro USD haddaa streamkii yaraa 10kii bisha dib u daawatid, euro USD waxaan eegi doonaa inay bullback soo samayso. bullbacktaasaan ka faa'iidaysanaya. bullbackta hadda wuu ii soo samaysay waa ka isla maalintaas newskii 10 minute-ka eeg 10 minute time frame-ka eeg newski waa i dhaafay day. waa kan waa tigi newskii. waxaan nasashaan sugaynaa candle-kan hoosu yimi bulsha ku xirmay, waa kii afarta galabno. kii 430 NYSE oo bina rejection hoosuu soo sameeyey bulsha ku xirmay. okay, and then waxaan idhi waa maxay chanceska suuqa kor ugu socon karo balaa CPI-du ay noqotay bad for the USD. so euro USD waa inay ka faa'iidaysto eurada oo kor aado. and then waxaan sameeyey all of a sudden waxaa dhacay halkan bay ka galay. haddaan lambarska usoo fiirsano waxaan bayda ka furay baydan way quruxda badan 1.03 260 1.03 03 260 leftiga eeg lambarka eeg 1.03 260. stop loss-kayga ma dhigin all the way down, ma dhigin waayo igu yara badan tahay marka lodkayguna waa 7 marka I don't think inaan wada qaadi karay. waxaan sameeyey halkan lowgana dhigay around 10 bib 9 bib 10 bib. and then targetkana waxaan kaga qaatay lacagtan waxaan ku qaatay 1.03445 1.03445 yeah, meelahaasa ku qaatay. mar hadduu kan xidhmay liquidity garaa qaatay hayga jabiyey atiga inaan isku dayo inaan hayay ahayd, laakiin waxaan ka yara baqayay mar walba rejectionka areadan ka jiray. targetkayga guudna halkaas ahaa analyska haddaa ku noqotay 10kii bisha. and then maalintaasna maalin sidaa ku qurux badan bay noqotay. marka waxaan qaatay 3 trade oo talaada ah iyo 3 trade oo arbaca ah. arbacada marka 3da trade ba isku hal idea ahaayay newska buy inuu diri doono suuqa. so waan galay waa ka degdegay and then waa galay los buu noqday. mar saddexaadkii waa ka weynka badan ii noqday oo 1000 iyo wixii ii sameeyey trade-kaasina $1,300. okay, waa ka gudbay. maalintii ku xigtay 11 bisha waxaan qaatay trade-ka waa NY Open. NY Open weeye, waana live streamkana ku qaadanay euro US dollar. and then haddana waxaan qaatay euro USD oo streamka ah. and then waxaan qaatay euro USD haddana. and then waxaan qaatay I think maalinta waxaan qaatay 4 trade 1 2 3 4 yeah 4 trades baan qaatay, laakiin dhammaan waxay ahaayeen euro USD iyo biaskayga oo buy ah maadaama shalay wixii soo baxay ay ahaayeen bad for the USD. that's why baanu yidhi good for euro way euro USD kor aado. marka trade-kan 1.03135 baan ka galay waana 11kii bisha waana labadii duhurnimo. 1.03135 1.03135 11kii bisha 1.03
labadii duurnimo 1.03 I think saacaddan khaldaya ee waa xilligii aan xiray tareerkani waa waxa weeye yaa tareerka hadda xasuustay waa tareer aan subax London ka soo qaadanayn euro USD yes lodkii yaraa ii ordayay waxaan xiray saddexdii galabnimo laakiin euro USD aniga iyo ardayda groupka ayaa wada qaadanay discordka waa London yes haddaan gartay waa kan waa right here euro USD waxay samaysay sidan oo kale marka ahayd horta look at this fake out baad soo dhici doona suuqan markasta biaskaygu buy buu ahaa sidanoo kale jabsatay waxaan rabnay retest inay samayso candlekana kor ku xirmay waa 9kii subaxnimo kanna waa 9kii iyo barkii hadda waxaan ka galay 1.03135 waa kan 1 hour kana ku qaadanay intriga waa 1 hourkii London this area saasoo kale u ahaa 1 hourkii before London baa ku xidhmay area dusha isagoo fake out soo sameeyay oo strong bullish candle ahaa I think meelahan intriga ka soo qaadana way ahayd laakiin waxaan sameynay 1 hour kan markuu xidhmay kanna hayga jabinayo intriga halkaas ka galay stopperska back into range dhigtay 12 bib meelaha targetkuna wuxuu ahaa around Wickfieldka konton bib ah marka wadashan markaa ugu jiro konton bib wax badan in ay siiso bay ahayd laakiin 1 hour candle markuu saa noqday 4 hour candle-kii baa xirmay marka eeg look at this 4 hour candle idea guudna 4 hour-kii ka timi discordka haddaan helayo oo ku noqon lahaa laakiin baaro buu noqonaya maalinta aanu discussion ka sameynay 4 hour-ka halkan kala marayay waxaan idhi hadduu 4 hour-ka hayaga jebiyo there's high chance inaan kor socon doono marka impulse ma rabno inaan qaadano suuqii oo bearish rejection sarena soo sameeyey waa inaan confirmation helno confirmationku muxuu yahay 1 hour-ka before London waa inuu kor ku xirmo kor buu ku xirmay kii kale liquidity grab qaata haygu jebiyey 4 hour-kan markuu no wick ku xidhmay waxaan sameeyey intrigaygii lot waxaan ugu jiray 5 lot 5 baan ugu jiray waa kan 4 ka mid ah xiray lot halna waa sii daayay markasta tradeka qayb baa sii daaya marka aan xiray intaa waxaan sameeyey all of a sudden break even baan keenay and then waxa dhacday inuu sidaa ku socdo traderkii candleka waa socdaa haddana bullish kaloo fiican buu siiyey and then later that day buu markuu meelaha kusoo noqdo streamka London aan ku jirno yaa halkan area markuu soo noqdo iska wada xidhay halkii xataa xidhay isna wuxuu ii daabacay around 1,100 okay isla maalintaa waxaan qaadanay streamka live streamka waxaan ku qaadanay euro USD oo buy ah lot 5 ah 1.03453 1.03453 1.03 halkan uu ahaa impulsive ahaan baan u galay sidan oo kale 1.03 1.03453 sidaas oo kale u ahaa stop loss wuxuu ku base garaysnaa 15 minutekii hore eeg u fiirso maxaan u jeednaa resistance inay tahay soo ma waxaan kaloo u jeednaa in candlekani uu rejection ka sameeyey kana uu kor soo baxay kan isagoo xidhmin baanu qaadanay waa impulsive wuu noqday wuu naga saaray haddana wuu reject gareeyay u fiirso ardada live streamka koyto bisha hada soo daawto arki doontaa markuu reject gareeyay kor u noqday idinu nagana soo saaray iris waris waxa kama qaban karay news buu ahaa oo BPID baa soo baxayay and then second chance baan siiyey isla maalinta 03425 isna break even oo kale uga baxay kor u profit ii aaday soo noqodku soo noqonayo waan ka baxay and then intan oo dhan hal trade uu isku ahaay midda meel aan ku xidhay labadaas ay min labada this one waxaan qaatay euro USD koyto ka habeenimo baan xiray no koyto ka habeenimo qaatay trade mistake abu ahaa waxay ahayd koob iyo 10 habeenimo around koyto ka bisha waa kan haa halkaasaan bay ka galay waxaan u arkay suuqani inuu area rejection ka sameeyey eegday isaga in kasoo break even oo kale aan ku xidhay around $80 la soo ii gashay sidoo kale aan arkay suuqani inuu fake out soo sameeyey saasoo kale u samaysanaya and then waxa dhacday suuq no this one way kan way koyto ka habeen suuq yaa galay daily candle ba xirmayay sidaasoo kale ahaa stop loss-kiigu waxaa lowga candle kan around 4 bib 5 bib buu ahaa in yar buu socday markuu saa u xidhmay kana intriga soo noqday hoos soo aaday waxaan xaqiiqsaday inay meeshu rejection tahay waxaan xaqiiqsaday 12 habeenimo tahay I said okay Seki you are making a mistake iska xir and then waa iska xiray I think maalintaan saasi ku dhamayd maalintii u dambeysay ee jimcihii waxa dhacay jimcihii waxaa qaatay Goldie London Open say tahay way garaacay 15 biyo la soo gashay managementkeyguna waa xumaa
mistake aan sameeyey halkan aan ka helaya haddaba gold waa kan gold sidan kale ahaa ha waa kan yes sidan kale waa candlekan ma ujeedaa waa 980 muxuu sameeyey korba ku xirmay soo maaha waxaan is qaatay buy halkan aan buy ka galay 193 19 193 1793.27 1793.27 1793.27 yeah meelahan ka galay resistance wiga qaatay isfilip gareey baan qaatay waxaan rabay inuu areadan ii gaaro resistance-ka ah 37 bib stop loss-kayguna wuxuu ahaa ilaa iyo 15 bib oo lowga wuxuu ahaa low u samaystay marka wig u samaystay buu ahaa okay suuqa markaan galay maan eegin areadan inay rejection tahay maxaa igu dhacay dharbaaxa igu dhacday marka waxay ahayd inaan eego inay areadan rejection tahay dan aan markaa aad uga taxadaro kama taxadarina waa iska qaatay isaguna losku saas uu ahaa sometimes mistake baad samaynaysaa laakiin mistake inaad samaysa waxaa ku garanaysaa marka traderskaagii aad soo dulmarsid so mistakegaas waa mistake weyn waa mistake aanan mar dambe soo celin doonin waa mistake aan nafteeda u sheegay inay ku degdegtay waana mid aan wax ka baranayo so sometimes pros make mistakes soma yeah bro ma ihi laakiin sometimes mistake qof kastaa sameeya okay mistakegaas kaasuu ahaa wuxuuna igu kacay inaan bixiyo $750 buu iga qaatay mistake aan galay $750 baan ku khasaaray so inaan kusoo cesho ma rabo GJ iyo Euro USD baan kusoo gabagabayay isla maalinta loss baan ku jiray lodkan waxaan u galay 7 lod weyn buu ahaa waxaan diyaar u ahaa maalinta inaan khasaaro week oo dhan baan profit soo ahaa so waxaan diyaar u ahaa inaan khasaaro profitkii aan sameeyey kala badh marka maxaa dhacay waxaa dhacay euro jbjby waa jimcihii waa labadii duhurnimo live stream ma jirin kowdii duhurnimo meelaha weeye 162 baan ka galay 162 waa GJ adig tarar keliyan GJ ka qaato usbuuca kaasu ah 162 jbjby wuxuu ahaa sidan kan waa 12 Agosto waa 12 bisha kowdii duhurnimo meelahaasaan qaatay 162 intaanan gelin horta waxaan arkay 4 hourku interi ka macaanaa ya 4 hour interi ka yimi based on 4 hour buu ahaa okay sidan oo kale uu ahaa GJ waxay samaysatay resistance-ka sidoo kale waxaa jiray support strong ah oo la jabsaday areadan la jabsaday retest fiican laguma samayn hoosaa loo daatay hoos suuqa aaday low buu samaystay waxaan u arkaya marka in lowgaa la retest garayn doono plus dailyguna wuxuu bixinay interi fiican marka 4 hourkan 4 hourka 8 subaxnimo furmay 4 hourkan kama qaadan wuu xirmay 4 hourka markuu xirmay wuxuu ku xirmay supportigan minorka dushiisa eeg fiirso supportigan yar dushiisa ku xirmay laakiin supportigan sare strongiga ah iyo kan sare baa soo ceshay this one-na wuxuu sameeyey fake out oo kale ka sameeyey this area oo fake out hadduu marka fake out suuqu sameeyey there's a 80-90% chance inuu awal zonka jabin doono plus weak zone way kan waa zone aad u daciifa kan marka liquidity graph uu ku maqan yahay intriga soo qaatay anigoo markaa anticipate garaynaya inuu hoos socon doono waxaan intri ka qaatay 216 aro meelahan markuu soo filip gareey wey 4 hour soo filip gareey stop-loss waxaan dhigaa 22 bib targetkiiguna wuxuu ahaa around areadan ahaa halfway candleka rejectionkan hore iyo wikiskan iyo areadan ku beegnaa 1 hourka markaan ku eegno marka suu ekaanayad 1 hourka wuxuu ahaa 1 hourkan oo kale stop-losskiisu ku base garaysna in 1 hourka wigiisa la buuxiyo in zonka la jabsan doono and so on marka xogaa sometimes waa risky entry laakiin markuu candlekani socday oo areadan hoose gaaray 30 minutekan eegay 30 minute wuxuu sameeyey markuu kani laabtay oo hoos salka aadayba meelahan uu soo jabiyeyba waxaan sameeyey break even baa keen dhammaantiina waxaan ku xidhay 1.162020 dhammaan ma xirin I mean 020 waa kan 020
halkaa markuu soo gaadhay loo toddobadii ii furnayd waxaan xiray loo shan ka mid a lood labana waa sii daayay anuu aaminsan inuu suuqu sii bixi doono muxuu sameeyey laakiin lood labadii markuu soo laabtay iga saaray so it is what it is intrigaasina sidaasuu ahaa waa sometimes waxaan isku daya inaan waxuun sii daayo waayo inta u badan runnerku wax badan buu ordaa hadduu kani ordo ilaa iyo konton bib maalinta maxaa isku daya inaan kontonkaa bib wada hayo lodkayga oo fuul ah marka si kalsoonidaad u badado waa inaad lod uun ka tigtid marka kan waxaan moodaa inaan ka qaatay around 70% 30% aan sii daayay laakiin waxay dhahaan 90% secure gares maadaama area rejection tahay jj saas ahayd trade-ka u dambeeyay euro USD buu ahaa isaguna trade aad u macaan buu ahaa maxaan idinkula soo wadaagay discordka statskayga whatsappka iyo telegramkaba laakiin waa markii aan galay bay ahayd ka hor ma ahayn baan u malaynaya interin wuxuu ku base garaysnaa jimcihii weeye shalay galab 4 hour interi uu ahaa waa euro USD 1.02650 baan ka galay 1.02656 1.0 4 hour ka dhig 1.02656 arday badan waa ka faa'iidaystay wallahi isma ogeen hadda waxaan arkay arday badan oo ka sheekeynayso le interigaas one of the best interi buu ahaa and then markaan usoo dhigay waxaan arkay inay isku interi nahay suuqa wuxuu sameeyey dee saborti aad u adag baa halka ka jira sabortiga suuqani kaanalka hoos ku xidhmo waa kaanalkii 12 furmay oo 4 hour ka ahaa afartii kale noo xirmay kani siduu hoos ugu socdo wuxuu u baahan yahay liquidity garab eg tareenku simply tareenka suuqani wuxuu u dhacaa sidan lower low sida eg suuqa tareenka caadiga maxaa haystaa high and then low higher high and then lower high and then higher high and then lower high markaan sel rabona low baad la samaysanaya higher low lower low higher low lower low higher low saasa lagu soconaya soo maaha simply candleskuna waa intaas suuqani wuxuu sameeyey high buu samaystay lower low buu samaystay lower high buu samaystay lower low buu samaystay so waa inaan marka lower lowga marka la jebinayo aan interigeed continuationka ka raadiyo lower high waa inuu soo samaysto marka si aanu lower low usii samaysan okay lower high waa liquidity garaabkeen 15ka marka aragtid oo kale structure baad arkaysaa and then markuu kor aaday waxaan ku fekeray inaan dynamic qaato interi halka soo galo hadhowna qaybta kale gasho laakiin waa jimce waa lacag fiican aa haysataa haridki garayn so waxaa samaysaa isku day inaa trade safe a qaadatid selstop waxaan dhigay lowga candlekan kolkaan dhigay eegs u ekaado 1 hourka sidan interi fiican u siiyey 1 hourka ujeedaa lowgaasoo kale 30 minute-kana dee wuxuu siiyey 30 minute lowgaasoo kale warka jebinayay baan qaatay 15kana sidan oo kale u ahaa marka bartaan oo kale aan ka galay 15 minute markaa u egtid stolsku waxaa 15 minute haygiis 4 hour buu ku base garaysan laakiin stolskaygu waa 15 minute ku base garaysan interview like 4 hour suuqan wuu soo socday wuxuu yimi ilaa iyo 1.02 524 524 552 ha halkaasaan ku xiray trade-ka kani markuu socday waxaan sameeyey wax kale ma sameyn break even baa dhigay maadaama aanay waxba iga ba'ayn oo aan usbuucayga si fiican u shaqeeyey so waa inaan isku dayo bilina trade-ka wax fiican ka sameeyo waa inaan riskiga meesha ka saaro marka hore 10 markaan dhigayo 0.7 0.5 risk aba iga jira laakiin marka break even ka keeno waa free risk baan free from any risk so inaan isku dayo inaan bal trade-ka hayn karo inaan wax fiican ka samayn karo dhammaan isna ma wada xidhin markuu area-da yimi lo 7 ahaa lo 6 kamid ah xiray lo halaan sii daayay lo halkii later that day wuxuu iga saaray break even buu iga saaray marka weegaygii sidaas u ahaa waxaan sameeyey around 3,744 baa ii soo haray marka saaxiibayaal dhammaantii waxaan idin leeyahay go over all your trades dhammaan tradeskaaga soo dulmar isku day inaa dhammaan riskigaaga fahantid isku day tradeskaa khalad ka samaysay ani tradeskaa khalad ka samey waxa weeye newska BBI-da iyo gold wax management amaan samayn gold management badan baa samayn karayay ugu dambeyn haddii aad fahmi karaysid waxaan aan sheegayno note aad ka qaadatid muuqaalkan waa public aad download garaysatid si aad ugu celceshatid interiyadaasoo kale aad isku daytid inaad qaadatid inaad ku celcelisid inaa wiigii 2-3 trade maalintii aad qaadatid wiigu 15 trade ka badan 15 trade haddaa ka badatid holy ma confer garayn kartid ma duubi karaysid ma qori karaysid marka isku day inaad free knowledge-ka ka faa'iidaysatid dhammaantiin aad idin salaamaya youtube-keena zonis online ama youtube-keena hagarlaawe akademiyada hagarlaawe ee zonis online fadlan subscribe saar cid kastoo aad la jeceshahay inuu waxaan ku dhiirado oo sameeyana u sheer gare waayo qof intaas samayn karaa ma jiro
qof intaa lacagta intaa leeg intuu sameeyo haddana hortaa soo wada dhigi karaa ma jiro. Dhammaantoodna live stream baan inta u badan live stream baan ku qaadan wiigan live streamkan u badnayn, laakiin inta u badan live stream baan wax ku qaadanaa. taana qof kasta og. Telegramkeena Hagarlaawi Academy oo kale every single waxaan soo dhigaa live accountiga idinku proof garaya, lacagtan sameeyaan soo dhigaa. Iska qarsan karaa waxayga, cidna iguma haysto. laakiin waxaan rabaa inaad wax ka baratid. Waxaan rabaa inaad aragtid suuqan adigoo Soomaaliya jooga, meel kasta jooga, Hargeysa jooga, Boos jooga, Muqdisho jooga, Boorama jooga, Gaalkacyo jooga, Garowe jooga, Baran jooga, meel walba jooga ayaad lacag samayn karaysaa. marka isku day inaa informationka ka faa'iidaystid, isku day inaa ciddaad jeceshahay la share garaysid. dhammaantiin aad idin salaamaya. haddii aad ka heshay informationkan, like noo reeb, subscribe-na noo saar. sidoo kale faalladaadu waa noo muhiim. waxaa niyadda ku haysid waxay kula tahay tareerka aan ku degdegay, tareerka aan manage garayn kari lahaa aanan manage garayn, tareerka aan hore uga baxay, ideooyinku waxay kula yihiin euro USD ka waran. inta u badan GG waa ku tirar garan jiray, laakiin hadda euro USD mudda inaan u badanahay. haddaan si guud u dulmaro day, waxaan qaatay traderskan qaatay day, kow waa khasaaro, labo khasaaro, saddex los, afar los, shan, lix loso wey. winkuna kow, labo, saddex, afar, shan, lix, toddoba waa isleegyihiin. win ratekaygu marka aan intaa ku base gareeyo waa 60%, 55%. laakiin waxa lagu kala tegay wuxuu yahay risky management. traderku markuu kaa soo horjeedo intee buu kaa qaataa, marka uu kuu saxan yahay traderkuna intee baad faa'idaa. That's all. 6 trader baan khasaaray, 7 traderna waa faa'iiday, haddana $4,000 oo faa'iidaan haystaa caawada aan kula hadlaayo. marka saaxiibayaal aad idin salaamaya insha allahu tacaala. waxa weeye guul baan dhammaantiin idin rajeynaya, weliba Hagarlaawi family. waxaa inoo ballana isniinta iyo live streamkeeni inuu inoo sii socdo haddii eeba ka dhigo 2 duhurnimo maalin walba live streamkii soo gala. Hagarlaawi familyna waxaan isku daynaa weegan oo dhan soo socda insha allah inaynu live streamkeeni London sii wadano, iska caan qabanno, hore u soconno. dhammaantiin aad idin salaamaya, soo dhawaada. asalaamu calaykum.